الله الرحمن الرحيم madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigu hogaaminayo ayaa maanta socdaal shaqo ugu ambabaxaya wadanka Imaaraadka Carabta kadib martiqaad rasmi ah oo madaxweynuhu ka helay dawladda Imaaraadka Carabta madaxweynaha wafdigiisa oo socdaalkooda shaqo uu muddo qaadan doono waxa uu safarkani salka ku hayaa xoojinta xiriirka soo jireenka ee ka dhaxeeya wadamada Imaaraadka Carabta iyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo wadaaga xiriir siyaasadeed iyo xiriir ganacsi isla markaana ay ka dhaxeeyaan hawlo horumarineed oo aad u waaweyn wuxuu safarkani dardar gelin doonaa xiriirka ganacsi xiriirka soo jireenka ay ka dhaxeeya labada wadan insha Allah ta'ala wixii warare ee dambe ka soo kordhana waxaanu idinkula soo wadaagi doonaa markaanu gaadhno dalka Imaaraadka Carabta iyo soo noqodkeegoon faahfaahin dheeraad ah siin doono aad iyo aad baa u mahadsan